Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asxaabta soo dhawaada qaybtan waxaan ku baranaynaa sida suuqa Alibaba looga soo adeegto ama alaab looga soo gato. Marka hore waxaa soo kicinaa abka, kadibna waxaa dooranaa alaabta u baahanahay, tusaale ahaan mobilkan oo kale, kadibna marka la sii dooranaa. Marka shaashadan marka ii soo baxdo waxaa arki karaa qiimaha halka xabo la gadaa oo $68 ah. Sidoo kale 20 xabo ilaa 99 xabo haddii aan u baahanahay in la iga siinayo $66 oo $2 la iga dhimaayo. Sidoo kale 100 xabo iyo ka badan haddaa gadanayna in $63 laga xisaabinayo. Marka haddii aan rabo inaan gato 3 qaab ku gadan karaa oo ah inaad dhaho start order ama add to cart ama chat now. Chat now inaad dhahdid marka waxay ka saacidi kartaa inaad marka hore supplierka iskala hadashid oo wada sheekayso idin dhex maro alaabta haddii qiimaha in laga sii dhimo u baahanto waa la gorgortami kartaa, waqtiga waa ka heshiin kartiin, qiimaha waa ka heshiin kartiin. waxaasna marka isla meel dhigtiin oo ah heshiisiin kadib alaabta gadanaysaa ama information uu ka siiyo. Marka waxaa leenahay chat now kadibna send. Supplieradan hore u adeegto marka escalova al dhaha isla marka automatic reply inuu soo jawaabo marka hello what can I do for you, maxaa ku qaban karaa ay leedahay. marka waxaa leeyahay I need this product. inta badan haddii luqadda ay ku fadhidana markaas waxaad doontida ku jawaabi kartaa, jumlada arabtida ugu jawaabi kartaa I need this mobile phone oo kala dhihi kartaa, laakiin I need this product waxa uu isticmaalaa waxay tahay qof walba inuu fahmi karo uu kaga faa'iideysan karo. alaabaha suuqan ku jira dhan product sal dhaha kadib qaybo si kala yeelanayaan marka magacyadooda Ingiriis ahaan hadda u garanayso sidoo kale sheegan u baahan markaas waa dhihi kartaa. haddii kalena I need this product. marka su'aasha koowaad inta badan ay ku weydiinayaan waxay tahay how many pieces do you need, meeqa uga baahan tahay. marka u sii raacayna isla markiiba for one piece leeyahay. isla marka waxaan u soo jawaabtay marka the product price is $68 and the price to your forwarder is $3 and the total price is $71. marka waxaa leedahay price-ka alaabtan ama halkii xabo ee mobilka waxaa la gadaa $68. freight-ka ama delivery-gan wuxuu noqonayaa $3. saa hore idin ku sheegay marka supplieradan hore uga adeegto oo address-kayga way haysaa saasay marka lacagta delivery ay u xisaabisaa, laakiin supplierka adii hadduu kugu cusub yahay ama markaas ay kugu horeys inaad wax gadanayso sidoo kale su'aasha labaad oo weydiinaa waxay noqonaysaa marka address-kaaga ama agendiga ama warehouse-ka waxaasoo kale ku weydiinaa marka ereyadaas kala duwan laga yaabaa inay ku isticmaalaan. address-ka waa ciwaankaaga, agendigana hadduu qof wakiil oo kale alaabtaas lagugu geynayo waaye, warehouse-na haddii baqaar iyo meelahaas lagu geynayo waaye. marka ereyadaas midka ku isticmaalaanbo waxaa u diri kartaa ciwaanka Happy Cargo oo ah shirkad alaabaha China kasoo qaado Soomaaliya keento. address-keeda u diraysaa waa address-ka hadda shaashada idinka muuqdo by a waaye kan qaybta diyaaradaha waaye. sidoo kale sawirkan asna waa isla address-kii oo sawir kale ah. waxaa kaloo samayn kartaa nambaradooda qaybta description-ka idiin soo dhigi doonaa, shaashadan wuu idinka muuqdaa. lambaradaas marka shirkadda Happy Cargo kala xiriiri kartiin. markaas address-kooda ayaga kugu soo dirayaan ama qoraal ha kugu soo diraan ama sawir ha kugu soo diraan, address-kaas ay kugu soo direen qolooyinka san camal ka adeeganaysid u diraysaa. marka markaad tirada rabtidna u sheegtid address-kina u sheegtid waxa isku darayaan lacagta guud ee alaabaha iyo tan delivery-ga kadibna way kula soo wadaagayaan. marka haddii aad ku qancin qiimaha wali waa iskala sii hadli kartaa oo gorgortanku wuu furan yahay. markaas afgaratiin oo alaabta aad ku qancad kadib waxaa leedahay okay send me a payment link. marka please wait moment iyo kuleeyihiin ama waxooga hona sug. waxaa leenahay marka okay acbaar kadibna payment linkiga kuu diyaarinayaan oo kusoo dirayaan kadibna waxaa leedahay make a payment. marka la hadana waxaa leenahay make a payment. sida kor nooga muuqato waxaa ku jira kaarkayga. marka waxaa leeyahay add new card si idinkan idinku fududaato dhowdii inaad kaarkiina aad soo gashan kartiin oo ku xiran kartiin. marka bugaan noo soo baxay waa buuxin doonaa. qaybta ugu koreysa waxaa ku qoran car number, lambarka dheer ee kaarkaaga kor uga qoran aad gelinaysaa. qaybtan labaad ee ku xigta ayadana waxaa gelinaysaa given nameska ay ku qoran tahay labada magac ee kaarkaaga ugu horeeyo. labadaas magac markaa gelisid magaca ugu dambeeya ee kaarkaaga magaca wahan waxaa gelinaysaa meeshan ay ku qoran tahay surname-ka. kadib qaybtan expire ee ku qoran tahay ayadana waxaa gelinaysaa bisha iyo sanadka u dhacay kaarkaaga inta badan hoos ay uga qoran tahay. sidoo kale qaybta ugu dambeysa ayadana ah CVV ama CSC-ga. inta badan kaararka labadaas magaca ku kala qoran, kuwana waxaa ku qoran CVV, kuwana waxaa ku qoran CSC. marka badanana qaybta dambe ee kaarka ku qoran tahay waa 3 lambar oo CVV ku hor qoran tahay ama CSC ku hor qoran tahay. 3 lambar oo qaybta dambe ee kaar ku qoran ama meeshaas la gelinaysaa. waxyar hoos daaw socon marka waxaa arki karnaa qaybo kamid ah address-ka inuu guduud saarayo taasoo ah qaladaad jiro. marka kor u noqonayna meesha ay ku qoran tahay billing calaamad tigta ka qaadayna. kadib formkana buuxbuuxinayna marka street ama PO box waxaa ka dhiganaa kilometer 4, country ama region-kan waxaa ka dhiganaa Soomaaliya, city or town-kan waxaa ka dhiganaa Muqdisho, postal code-kan waxaa gelinaynaa nan. marka haddii aad gobol joogtid oo kale address-kaaga saxda ku buuxbuuxin kartaa. isla address-kan haddaa isticmaashidna waa caadi, wax dhibaato ah kaagama imaanayso maadaama alaabta Muqdisho oo la keenayo. address-ka Muqdisho hadaa gelisid waa iska caadi ayadana. kadib waxaa leenahay buy now.
hadda paymentig waa sameeyno oo si successfully am guul u noogu dhamaasa arki karno laakiin arinta muhiimka ah in isla ogaano loo baahan yahay waxay tahay lacagta naga go'do waa $75 hadaan lacagta telefoonka noo xisaabiyo waxay $68 iyo $3 delivery $71 marka kaarkan hadii $71 ay ku jiri lahayd uu diidi lahaa mar walba uu is soo celin lahaa oo violate noo soo qori lahaa lacagta hadda naga go'do maadaama $75 ay tahay inta kale waxa u go'day company-ga Alibaba oo leh web app-kan aan wax ku kala gadanayno kadib bashqadan ama shaashadan noo muuqata waxa ka qaadanayna screenshot si cadaan ah noo noqoto in lacagta bixina waa ka noqonayna marka supplier qaybtiisa marka ku noqon waxa dooranayna icon-kan sawir dirista kadibna waxa ka dooranayna send local photos kadib waxa ka sii dooranayna sawirka screenshot-ka oo mar walba u soo kormarayo marka doorana kadib waxa leena okay mar walba tana saana wax u diri kartaa sawir hada u baahatid oo kale ama cadeemo screenshot oo kale saana u diri kartaa sidoo kale address-ka happy cargo hadii sawir ahaan ay kaaga soo dhigaan saana asna u diri kartaa marka waxa uu qoraa full name-kayga iyo contact-kayga si kartoonka iigu soo dul qoraa ama iigu soo dul dhajiyo happy cargo markii loo geeyay si degdeg ah iigu soo xiriiraan supplier-kana la soo hadla marka wuxuu leeyahay received your payment what color do you need lacagtii ama payment-igi waa helo uu leeyahay color noocay u baahan tahay dhowr color marka hoos noogu soo bandhigo ah black gray purple gold marka mid kaartii hadhow dooran kartaa waa riixa kadibna reply u gala waxa leeyahay black color kadib qaybtan xadigaha ugu gudbayna how will you rate the supplier's service based on your communication so far marka habkan oo lagu adeegana weydiina ina feedback ka bixino xadiga shanaad ugu dambeeya taabana kadib qaybta description-ka waxa uu qoraa very satisfied ama aad ugu qancay qaybtan tagiskan waxa ka dooranaa marka fast response kadib waxa la submit waa isaga bixana marka banaanka iska aadayna intuu hawshan nooga soo dhameeyna hadda jaaw nala soo hadlabo marka ku dhufan waxa arki karnaa inuu noo soo qore I will send you the photos of your package and the logistics tracking number to you this evening marka wuxuu leeyahay feedku waxa ku soo diri doonaa tracking number-ka iyo packet-ka alaabta kugu jirta sawirkiisa ku soo diri doonaa labadan marka waa muhiim hadii supplier-ka saacado gudahooda uu taas kugu soo diri waayo ilaa hal maalin laba maalin ugu badnaan oo kale uu kugu soo diri waayo waa la hadlaa waxa la dhahaa packet-ka alaabta ay ugu jirta sawirkiisa iyo tracking number-ka ii soo dira labadaba waa muhiim waxa leena marka okay waxa kadib marka WhatsApp-ka fariin iga soo dhacday oo dhinaca Alibaba ka imaatay marka ku dhuftan waxa ay keentay meeshan waxa ku sii dhufanaa marka few logistics details marka wuxuu keenay boga marka imaan waxa arki karnaa marka in soo sameeyno order-kii payment-igi hadana delivery-gi la sameeyay marka hoos waxa yar u soconaa waxa fiirinaa in alaabta saxnaa ay dalbada ay tahay in alaab kale ay tahay alaabtii hadda marka waa saxanta telefoonka waa telefoonkii qiimihii waa $68 delivery-ga ama shipping fee-gi waa iska $3 marka kor uu noqonaa waa iska sii noqonaa meeshan qaybta home marka tagana waxa uu gudbaa qaybta messenger-ka ama supplier-da laga hadlo saar karna marka hada supplier-ku nala soo hadla tracking number-kan waa uu noo soo diray sawirkiina sidoo kale uu noo soo diray marka anaga isaga meeshan ku kala dhamaana waxa isaga qoranaa marka thank you appkan waa isaga soo baxana marka maadaama alaabtan meesha la rabo noo geeyo waxa galina marka WhatsApp-ka marka hadana WhatsApp-ka waxa iga soo dhacay fariin kale oo ka imaatay happy cargo marka fariinta ku soo dhuftan waxa arkayaa in documenti iyo qoraal isla socda ay yihiin qoraalka marka waxa ku qoran in happy cargo la ii dhigay xarunteeda China alaab u dhiganta 1 kiilo marka sala socona telefoonka 1 kiilo uu ka yar yahay oo waa nus kiilo iyo wax ka sii yar laakiin ayaga 1 kiilo ahaan ku xisaabinayno 1 kiilo wax ka yar hadda ku soo qaadan 1 kiilo ku xisaabinayno 1 kiilo wax ka yar ma qaadaan marka waxa ku dhufana marka qaybta documentiga wax ku qorana fiirinaasna qaybta description-ka saa ka arki karna waxa ku qoran inuu mobile yahay magacaygan ku qoran lambarkayga sidoo kale uu ku qoran yahay sidoo kale waxa arki karnaa ciwaanada iyo lambarada laga xiriiri karo happy cargo qaybtan kalena waxa ka arki karnaa isla iskaan-koodii iyo cidda aqbashay alaabta marka waa isaga noqonaa WhatsApp-kan waa isaga baxaa muddo kadib marka hadana waxa soo gaartay fariin kale oo happy cargo ka imaata sidoo kale waa documenti iyo fariin isla socota waxa lagu dalcaalilay $12 oo ah alaab ku imaatay marka inta badan 1 kiilo waxay xisaabiyaan $12 from China to Muqdisho marka $12 waa waqti ahaan waxa qaadataa 2 isbuuc ilaa ugu badnaan 16 maalmood oo kale ay qaadataa in alaabta marka diyaarad ku soo qaadatay ay kugu imaatay sidoo kale qayb waxay leeyihiin markab qaybtaas marka muga ku soo qaadatay marka 1 ilaa 10 bari ilaa 5 ilaa 10 bari marka qaarkood oo kale laga yaabo in bil kugu qaadato marka alaabo badan oo kale jumlo marka dalbanaysa la isticmaalaa markabka oo inta badan maraakiibta waxa la isku xisaabiyaa CBM waxa la dhahayaa ama inta space ahaan ay alaabtaada ay ka qaadanaysa markabka laakiin markii diyaarada soo saarinaysid kg lagu xisaabinaa ama culayska alaabtaas lagu xisaabinaa marka alaabo yar oo iska fudfudud soo qaadanaysa diyaarada ku fiican si dhaqso ah kugu imaato marka documentiga galaasna waxa ku qorana fiirina documentiga marka soo furo waxa arkay in alaabtii mobile-ka oo qaybta description-ka dayna ku soo arkeen inuu ii imaado $12 oo kale oo horena in la igu lahaa marka 12kaas iyo 12kan labadaas alaab waa isla sugaayo alaabtaas mar hore xafiiskii taale oo isku soo qaadana marka $24 isku noqota sidoo kale qaybtaas waxa nooga muuqda bangiyaasha lacagta ugu shubi karno happy cargo marka bangigaas lacagtooda ugu shuba marka bangiga lacagta ugu shuba kadibna sawir ka qaada screenshot sawirkaas u diraa si ugu cadeeyo in alaabtii u dira ayagana sidoo kale waxa ii soo direen warqadii rasiidka ahayd oo muujinaysa in lacagtan
liga aqbala ama ay heleen lacagta rasiidkan laba qayb uu ka kooban yahay kulay qaybna ayaga reeban doonaan qaybna alaabtay kuu soo raacin doonaan oo haddii meesha aad tegtid oo kale isla markaas waa ka qaadan kartaa haddii gobol aad joogtidna qof asxaabtada ama ehelkaaga ka mid ah u dirsan kartaa oo kuu soo qaadi kara rasiidkan hadduu meesha la tago waa caadi kuu soo qaadi karaa sidoo kale waxaa samayn kartaa shirkad kale waxaa jirta ayadana Fleet Express la dhaho oo aad dhihi kartid shirkadaas iigu dhiiba shirkadaas kugu soo dhiibayaan oo kugu xawiilayaan lacagtii deliveryga waa iska bixinaysaa kadib shirkadaasaa kuu soo qaadayso oo ayadana si gooni kula macaamiilaysa alaabtaas gobolka aad joogtid inta kugu keenaysaa ka wada heshiinaysiin kadib waa kuu soo qaaday alaabta si toos ah kugu keenay marka casharkaana intaasuu noogu egi maro inuu nagu sii dheeraado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.